maamulka koonfur galbeed haddaba mid kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfur galbeed waraysigiisa raadiyo dalan waxa uu ku baaqay baarlamanka maamulka koonfur galbeed iyo bulshadaba sharif xasan sheekh aadan inaanay codna la siinin waxba la dooranin lasoo tijaabiyey muddo 4 sano ah baarlamanka si gaara wuxuu ugu baaqay musharax wax u tiraya bulshada koonfur galbeed inay doortaan oo musharaxiinta shariif aan ahayn oo musharaxiinta kale qof danaha bulshada ka shaqeeya ay kala soo dhexbaxaan baarlamanka siyaasigaas waxaa la yidhaahdaa ayuub cabdiqaadir ayaa la yidhaahdaa haddaba waraysi arrintaasi aynu kala yeelanay ayaa wuxuu ugu baaqayaa dhammaan reer koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan inay yidhaahdaan sharif oo kusoo tijaabanaya raalli aho waxaan rabay doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed inaan ka hadlo waxaa dhulka nagu soo haysaba doorashadii maamul goboleedka koonfur galbeed ee lagu sameeyey waxaa magaalada baydhabo isbuucyadan iyo maalmahana lasoo dhaafay sii gaarayay musharaxiin badan oo ka mid yahay sheekh mukhtaar roow cali baasuumaso iyo lifti garay iyo rag kaloo badan marka waxaan rabay horta doorashadan horay horta sheekh shariif ayaan la hadlaan rabaa shariif xakiin horay uu ahaa madaxweyne haddana ah weligii hay-ado ah madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane shariif waxaan ku leeyahay shilkan waxaad ku haysay muddo 4 sano ah kulley waxqabadkaagii iyo waxaa waa la arkay si gaarana haddaan ugu hadlo gobolka shabeellada hoose waa gobol oonan hal marna soo fiirin maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka dhiga tiray xaaladaha ka jira hadda gobolka shabeellada hoose oo marnaba soo fiirin waxaa kaloo madaxweyne shariif uunan soo magacaabinba madaxweyne ku-xigeenadiisii oo xaq u ahayd reer shabeellaha hoose iyo caasimadii oo saxda ahayd maamul goboleedka koonfur galbeed oo baraawe ahayd ilaa hadda inaanan laga helin arrimahaasi oo caasimadii gobolka shabeellada hoose baa laga bedelay magaalada marka oo la geeyey baraawe sidaas ay tahay magaalada marka waxaa ka jiray colaado fara badan iyadoo magaaladii kaystay dhinacna dowladii masarkeediina oo si kala qaab kale ahayd oo ciidamo badan ka jiray magaalada marka oo arrintaas hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin aan maancelinayno haddaan nahay reer shabeellada hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo oo halkaasi ciidamo u diray lagana saaray cadowgii argagixisada al-shabaab oo ilaahay mahadiisa dhinaca kale madaxweyne shariif waxaan ka codsanayaa inuusan isku soo sharaxin mar damba xilka madaxweynena maamul goboleedka koonfur galbeed kulley waxqabadkiisa waa la arkay jaanis siiyo madaxweyneyaal musharaxiinta taagan jaanis ha u siiyo inuusan mar damba isku soo sharaxin kulley rag isbedel baa la rabaa oo isbedel maamulka isbedel inuu sameeyo oo raggii hore wejiyadoodii weji isu bedelo oo waxqabad isu yimaado waan ognahay shariifka ma soo dooran xildhibaano doorashadaas la sugayo 17 November waa doorashadii ugu horeysay xildhibaano waxay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay xildhibaano ka qayb qaataan oo xildhibaano codeeyaan taasna waa ilaahay mahadii waxaan ognahay shariif inuunan meesha ku joogin rabitaan shacab ama rabitaan xildhibaan sidoo kale waxaan ognahay xildhibaanada hadda ka jira maamul goboleedka koonfur galbeed inuu shariif soo magacaabay xildhibaanadii lasoo magacaabay oo sama meesha yaadan xildhibaano oo lasoo doortay oo dadkooda soo doorteen oo laga soo codeeyey waxaa ka jira maamul goboleedka koonfur galbeed sunaas oo aad u weyn marka waxaan ka rabnaa mudane shariif inuusan mar dambe isku soo sharaxin kulley aniga madhahay hibil ha la doorto intaastaa u fiican laakiin xildhibaanada kuwii way wada ku yihiin qofkii u fiican maamul goboleedka koonfur galbeed masiirka ummadda saddexda gobolna ka fikiraayo sida hadda ka jirta shariifka ma daraynin marna ma uusan hoos u fiirin gobolka shabeellada hoose wuxuu sameeyey labada gobol iyo boqol uu ka fikiray baydhabo janaayo oo ah hadda xarunta kumeelgaarka ee madaxtooyada kumeelgaarka ku saaro oo uu daneeyey oo uu dhistay oo uu nuuriyey uusanba ka fikirin mararka iyo meelaha lamidka ah weliba ay ku jiraan gobolka shabeellada hoose ay tahay meelaha ugu badan cadowga al-shabaab uu ku jiro kulleyna taas waxaan ka codsanaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
شرائعات إن غرشة كان دعوة الجمهورية الفدرالية الصومالية سيقول مجال المركين القريان مجال كمان سيد الجنان استقلال أو كيكي مصارك برير لمان تكنوين كمان إني قصورا دمر كشبان الوضع مامو دولات وحاصل بالدوم وحاصل السنين شرعية الدتاج الزوجة من دمر كشبان الوضع حقيقة لها من غيره وقوال كأفضل كسوق بيرات بدن بلد الصومالية وحتى الحقوق دي كان الهرم والله وأرين بدن وقوال كشبان الوضع وكم جاي تدوي شو يتوقف والدمر كأوق بيرات بدن وحتى الحين كتير تملا وحاجة مثلين مشرحين الدتاج أبو بلاي كويتي وسيكون كويتي إلى سنة كويتي ومثل في أمضى في أوروبا دمر كشبان الوضع waxaan kaloo sariif ka codsanayna inuu samar badan soo sharaxay xilkaas maadaama uu horay ugu fashilmay xilkaas 4 sano waayey oo ognahay dad marka shariif inuu kor dhaafay 6 fud oonan wax uu qabad iyo uusan la imaanba oo maamul goboleedkuusan keenin oo ilaa hadda wax qabad aanan laga haynin oo wuxuu qabtay maanta shariif aanan la haynin gobolka shabaaba gaar ahaan hadda wuxuu noqday gobolka ugu isbaarooyinka badan ugu dhibaatada badan oo xarunna u noqotay maleeshiyada al-shabaab oo faraxyadii ka badanna laga soo abaabulo marka doorashada koonfur galbeed waa doorasho hadda dhacday taariikhda 17 November waxaa la dhihi karaa waa doorashadaas doorasho lagu fashilay waaye hadduu kusoo baxay markaas 17 November hadday daaqatan shariif doorashadaas doorasho isku dhici doona shacabka kuna dhexda badan lama ahan marka sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada waxaan ka codsanayaa orero koonfur galbeed ah si dhexda badan waxaan idinka codsanayaa xildhibaan ilaahay inuu ku yahay daacadnimo iyo dadka aad matalaysaan inaad u dooratiin shacabkiina birwad ku dooran kara shaqsi wax u qaban kara beri shacabkii wax fay kara wax ka bedeli kara maseerkii oo reer koonfur galbeed oo ognahay maanta reer koonfur galbeed waa xabadhaba ay tagaan waa koonfur galbeed si waqti 3 gobol haddaan ka hadalno maleeshiyada waa meesha ugu badan ay ku sugan tahay 3 gobol ee koonfur galbeed maa makooni shabeellada hoose marka waxaan ka codsanaynaa musharaxiinta dadwaawan inay ku guuleysatada inay wax u qabtaan oo jiraan iyo wax ugu qabtaan xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa intii wax u qabanaysa ay og yihiin maamul goboleedka inay wax u qabta inay doortaan oo ay diyaar codkoodii ay iyagana wax ugu qabtaan shacabka ku nool 3 gobol marka mudane shariif xasan oo ku mahadsan tahay intaad la soo dawaajisay aad la soo hogaamisay gobolkan kulli wax qabadkaadana waa arkeen ummadda koonfur galbeed marka waxaan ka codsanaynaa adigana inaad jid inaad musharax noqotid dalkana hadduu ilaahiyaa si nabad aad ku wareegtid kolley arrintaasaan ka codsan lahayn haddaan nahay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose ama guud ahaanba koonfur galbeed soomaaliya shacabkana waxaan ka codsanaynaa shacabka naftirkooda waa xubin muhiima naftirkoodii inay naftirkoodii taageeradoodii ku muujiyaan musharaxiinta kale insha allah digsi himilo in la baxayo hogaamiyaha shariif waxaan ka codsanayaa inuu safarka kusoo sharxay